taariikhda wadanka Ivory Coast sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Cote d'Ivoire wuxuu dhacaa xeebta koonfureed ee galbeedka Afrika. Caasimadda dalka Ivory Coast waa magaalada Yamoussoukro waxayna ku taalaa bartamaha dalkaasi. Laakiin caasimadda ganacsiga iyo magaalada dhaqaalaha ugu weyn ayaa ah magaalada dekedda leh ee Abidjan. Badka dhulka Ivory Coast waxaa lagu qiyaasaa 322,463 kiiloomitir oo laba jibaaran. Wuxuu ka hormarsan yahay kana dhaqaale badan yahay wadamo badan oo Afrika ah. Wuxuu xad la wadaagaa 5 wadan oo kala ah Liberia, Guinea, Burkina Faso, Mali iyo wadanka Ghana. Ivory Coast waa dal boqolkiiba 60 ku wacan beerashada iyo wax soo saarka. Dalagga uu sida weyn dalkani u soo saaro ayaa ah miraha loo yaqaan cacao-ga. Waana dalka ugu badan ee soo saara mirahan laga sameeyo chocolate ama shukulaatada. Wuxuuna soo saaraa ilaa boqolkiiba 40 cacao-ga caalamka loo dhoofiyo. Wuxuuna soo saaraa sanad kasta in ka badan 2 milyan oo tan oo cacao ah. Laakiin xaqiiqda la yaab kale ayaa waxay tahay shaqaalaha ka shaqeeya soo saaridda mirahan weligood ma aysan dhimin chocolate-ka. Ivory Coast inuu noqdo dal dhanka beeraha ku tiirsan waxaa sababta ugu weyn leh webiyada dalkani mara. 3 ayaana ugu weyn oo kala ah Sansandara, Kamua iyo webiga ugu dheer dalkani ee lagu magacaabo Bandama. Buurta ugu dheer dalkani magaceeda waxaa la yiraahdaa Nimba. Waa buur cajiib ah oo ay wada leeyihiin 3 dal oo kala ah Guinea, Liberia iyo wadanka Ivory Coast. Waa buur doog daboolay waxayna leedahay dhul dabiici ah oo la ilaaliyo. Waxayna ku jirtaa liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. waxaa soo gumeystay dalka Ivory Coast gumeystihii Faransiiska waxayna ka qaadatay madax bannaanideeda sanadkii 1960kii. Lacagta wadankani waxaa lagu magacaabaa West African CFA France. Magaalada Abidjan waxaa dhacda xaafad lagu magacaabo Assini. waa goob dalxiis oo ay maalmaha fasaxa ku kulmaan dadka taajiriinta ah. Tirada dadka Ivory Coast waxaa lagu qiyaasaa ilaa 8 milyan waxaana loo yaqaanaa dadka dalkani Ivorian. waxaa ku nool in ka badan boqolkiiba 60 qabiil oo asal ah. Qoomiyadda ugu ballaaran dalkani waa qoomiyadda loo yaqaano Akan oo dadweynaha Ivory Coast waxay ka tahay ilaa boqolkiiba 42. Luqadda rasmiga ah ee dalkani looga hadlo waa Faransiiska. Cunto qarameedka dalkani aadka looga jecel yahay waa cuntada loo yaqaano garba. Muslimiinta dalkaasi waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqolkiiba 42. halka Kiristaankana ay yihiin boqolkiiba 39. Laakiin dalkani waxaa laga helaa kaniisadda Basilica ee ugu weyn caalamka. Waa kaniisad ku taala caasimadda dalkani Yamoussoukro waxaana lagu dhisay lacag ka badan 300 milyan. madaxweynihii koowaad ee dalkaasi ayaa qorshahani ka dambeeyay waxayna dadka dalkani ku dhaliilaan inuu lacag intaas le'eg ku dhisay kaniisad iyadoo lagu hirgelin karay kaabayaal dhaqaale oo loo baahi qabay. dadka dalkani waa dad aad u xiiseeya kubadda cagta waxaana ka soo jeeda ciyaartoy wacdara ka dhigay horyaalada adduunka ugu weyn. dhanka xulalkana koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa lagu dhigay oo ay martigeliyeen sanadkan 2024 iyaga ayaana ku guuleystay. ciyaartoyda ugu caansan wadankani ee ka soo jeeda waxaa ka mid ah Didier Drogba iyo Yaya Toure. dalkani wuxuu caan ku ahaan jiray ka ganacsigii Fanta Maroodiga waana sababta loogu bixiyay Ivory Coast. Ivory Coast waa dalka labaad ee leh dekedda ugu weyn Afrika waxayna ka dhoofiyaan wax soo saarka dalagga ee dalkooda ku tiirsan yahay.